السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وهذا الرفيق أكاديمي عشر كنا وحكو سابسني هاي كوكانوشا أنا وحليري ذا حالة ديدمو si aanu ugu hadalno xaaladda diidmada waxaa muhiim ah inaan soo qaadano afarta waqti oo la kala yiraahdo wakati uliopita, wakati timilifu, wakati uliopo na wakati ujao. Wakati uliopita waxaa la yiraahdaa waqti la soo dhaafay, wakati timilifu fal daqiiqado yar ka hor dhacay, wakati uliopo fal hadda dhacaya, wakati ujao fal aan weli dhicin ee la filayo inuu dhici doono. Marka waqtiyada hor baan ugu soo hadalnay ee waxaa jiray muuqaal hore aan soo gali oo afartan waqti hadda aan sheegay aan ku sharxay. Muuqaalka asagana wuxuu ku jiraa playlist-ka waa ka nuuciisa, marka waxaad ka raadsan kartaa playlist oo aad dib u daawan kartaa waqtiyadaas iyo qaabka ay isku bedelaan. Cashirka hore ayaa lagu shaxay. Marka hadda waxaa muhiim ah qaab diidma ah kukanusha waxaan iri waa xaaladda diidmada sida loo sameeyo falka qaab diidma si looga dhigo oo kaliya ayaan hadda u guda galeynaa. Marka cashirka hore waxaan u soo qaadanay waa cashirkan ku xiran cashirkan ka la'aantiis lagama hadli karo. Marka waxaan soo qaatay afartan erey ee kala ah andika, soma iyo keti. Andika micnaheedu waa qor, soma waa akhri, ketina waxa way fadhiisa. Marka afartan erey ayaan diidmo ka sameynayaa. Aan ku hormarno wakati uliopita oo ah waqti la soo dhaafay. Wakati uliopita waxaa loo soo gaabiyaa li kilix l iyo I. Li ayaa loo soo gaabiyaa ama li ayaa u taagan. Marka ereyga ugu horeeya waa wuxuu ahay andika hadii fal mar hore dhacay laga dhigayo waxaa la leeyahay li ayaa la raacinayaa niliandika. Marka niliandika waa hal qof waan qoray. Hadii la diidma laga dhigayo waxaa la leeyahay ma qorin. Waan qoray maxay noqonaysaa diidmadeeda ma qorin. Marka niliandika waxaa la leeyahay si kuandika. Tuliandika hadii la isla falka asaga oo niliandika hadii jamac laga dhiga wuxuu noqonayaa tuliandika. Waan qornay oo dad badan ah. Hadii diidma laga dhigay waxay noqonaysaa hatu kuandika. Marka ereyga kale wuxuu ahay soma. Nilisoma hal qof waaye nilisoma waan akhristay. Hadii diidma laga dhigay waxay noqonaysaa si kusoma ma akhrisanin ayay noqonaysaa. Hadii dad badan jamac laga dhigana waxay noqonaysaa tulisoma waan akhrisanay. Hadii diidma laga dhigana hatu kusoma ma aanan akhrisanin ayay noqonaysaa. Nili keti waan fadhiistay. Hadii diidma laga dhiga si ku keti ayay noqonaysaa. Hadii jamac laga dhiga niliketigaas waxay noqonaysaa tuliketi. Diidmadeedana waxay noqonaysaa hatu ku keti ayay noqonaysaa oo dad badan oo dhahaya ma fadhiisanin. Marka sidoo kale waxaan u gudagalaynaa xaaladda labaad ee wakati timilifu oo fal daqiiqado yar ka hor dhacay waa far la soo dhaafay laakiin daqiiqado yar ka hor ayuu dhacay falkaas wuu ka duwan yahay falkii mar hore dhacay. Marka falkaasna waxa u taagan falkaasi waxa la soo qaataa me ayaa u taagan sentence-ka. Marka for example hadii aan ku darna andika nime andika oo macnaheedu yahay waan qoray. intuu macalinka fasalka ku jiro haduu ardaydu weydiiyay cashirkii ma qorteen waan qornay macalin. Marka nime andika ay isticmaalayeen me ay isticmaalayeen li ma isticmaalayeen waayo li waxa loo adeegsadaa waqti hore waxa dhacay laakiin daqiiqada yar ka hor wixii dhacay waxa loo adeegsanayaa me. Marka meedi ayaan ku bilaabaynaa. Ereyga hadda aan soo qaadanay wuxuu ahaa andika hadii meel lagu daro waxay noqoni nime andika waan qoray. Diidmadeedana waxay noqonaysaa sija andika nime andika sija andika. Tume andikana waxay noqonaysaa hatuja andika. Nime soma waxay noqonaysaa sija soma. Tume soma waxay noqonaysaa hatuja soma. Nime keti waxay noqonaysaa sija keti. Tume ketina waxay noqonaysaa hatuja keti. Marka nime andika waxaan dhahnay waan qoray. Diidmadeedana waxay noqonaysaa sija andika oo ma qorina. tumeandika waa dad badan, hatu
Jaandika waa ma aanan qorin oo dad badan waaye. Nimesoma waan akhristay. Sijasoma ma akhrisanin. Tumesoma hatukusoma waaye ayadana waa isla falkii oo jamac laga dhigay. Nimeketi sijaketi. Tumeketi waxay noqonaysaa hatujaketi. Halkaas waxaa nooga eg xaaladii labaad ee ahayd wakati timulifu. Waqtiga kale ee saddexaad ee aan u guda galayno waa wakati uliopo oo ah hadda fal dhacaya, fal hadda socdo. Falka hadda socdo waxaa loo soo gaabiyaa ama u taagan na ayaa la isticmaalaa fal hadda markii laga hadlayo. Ninaandika, ninasoma, ninaketi. Marka ninaandika waxa waaye waan qorayaa. Hadda ayaan qalinka gacanta ku hayo waan qorayaa. Marka xaalad diidma haddii laga dhigo ninaandika waxay noqonaysaa siandiki. Hadda way falkaas waan qorayaa ma qorihay. Tunaandika waan qoraynaa, hatuandiki ma qorihayna. Ninasoma waan akhrinayaa waxay noqonaysaa sisomi ma akhrinhayi. Tunasoma waan akhrinhaynaa waxay noqonaysaa hatusomi ma akhrinhayna. Ninaketi waan fadhiyaa. Siketi ma fadhiyi. Tunaketi waan fadhinaa. Hatuketi ma fadhina. Marka xaaladan waa xaalad fal hadda dhacaya oo socdo waaye. Falka afaraad ee ah wakati ujao, kaasi waa waqti inaga horeeya. Kan naga horeeyana waxaa loo soo qaata ama u taagan ta ayaa la isticmaalaa falka naga horeeya markii laga hadlayo. Marka andika waxaan leenahay nitaandika. Kesho nitaandika barua. Beri waxaan qori doonaa waraaq. Waan qori doonaa waay. Nitaandika waan qori doonaa. Falka fal aan weli dhicin oo inuu dhaca la filayo waaye oo naga horeeya. Marka kesho nitaandika barua. Haddii diidma laga dhiga maxay noqoni? Beri waraaq baan qori rabaa. Waxay noqonaysaa beri waraaq ma qoraayo. Nitaandika barua kesho waxay noqonaysaa sitaandika barua kesho. Beri waraaq ma qoraayo. Diidmadeeda sida ayay noqoni. Nitasoma waxay noqonaysaa sitasoma. Nitaketina waxay noqonaysaa sitaketi. Ta ayaa lagu daraya aan dhahay. Marka jamaceedana wuxuu noqonayaa nitaandika waxay noqonaysaa jamaceeda tutaandika. Haddii diidma laga dhigo waxay noqonaysaa hatutaandika. Nitasoma waxay noqonaysaa diidmadeeda sitasoma. Haddii jamac laga dhigana waxay noqonaysaa tutasoma waxay noqonaysaa hatutasoma. Marka cashirkeena halkan ayuu nooga egyahay. Xaaladahan waqtiyadan haddii aad xoogaha u arkaysa inay yara culus yihiin, cashirkan iyo cashirka hore ee YouTube-ka playlist ku jira ee hadda aan ku tusay ayaad si fiican u raacan kartaa. Marka si fiican ayaad u fahmaysaa. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay diidmo oo kaliya. Yeel ma yeelaaye, samee ma sameynaaye. Marka diidmada oo kaliya qaabka loo adeegsaday ayaan uga hadlayaa cashirkan. Waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen. cashir kale oo diidmo ayaa soo socda oo weliba waxyaabo cusub inta hadda waqtiyada bisaan ka hadlay marka mid kale ayaan kusoo kordhin rabaa kaas markaan kusoo kordhiyay ayaa waxaan su'aalooyin ayaan soo raacinayaa si aad uga jawaabtaan oo cashirka si fiican ugu fahantaan waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi